بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركله كنا وناسن رمضان كريم كسور دوادا جنالك دلجر ميديا. haddii aad nagu cusubtahay waxaanu kaa codsanaynaa fal inaad janalka youtube-ka subscribe noo saartid pageka facebookana aad like iyo follow isugu dartid aad baad u mahadsan tahay. iyadoo ay weli socdaan dadaalada loogu jiro sidii loo xallin lahaa khilaafaadka la xiriira doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo dhaafay ayaa haddana waxaa maanta ka bilowday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho barakac iyo qax. barakacan ayaa ka dhashay kadib markii ciidamada daacadda u ah siyaasi Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame ay ka guureen fariisimahoodii hore ayna u guureen xaafadaha Siigaale iyo aaga Shirkole. guuritaankoodana ayaa yimid kadib markii ciidamada taabacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadeen jidkooyinkii ay dhigteen ayna fureen wadooyinkii u xirnaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame. ciidamadan falaagada ayaa waxaa horkacaya Generaal Indha Cadde oo horey uga tirsanaan jiray ururdiimeedka Xisbul Islaam kaas oo isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya kadibna lagu maamulay darajada generaal isagoo dhawaan bilaabay inuu ku biiro isbaysiga mucaaradka Soomaaliya kaas oo dadka qaarkiis ay ku dhaliilayaan inay horinayaan colaad qabiileed. ciidamada mucaaradka oo ay kala hogaaminayaan Generaal Indha Cadde iyo Sadaq John ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay isaga baxaan guryahooda ayna baneeyaan xaafadahooda oo ay isaga qaxaan. arrintan ayaa lagu sheegay inay ka leeyihiin laba ujeedo oo kala ah kow inay tusaan beesha caalamka inay jirto xaalad dagaal ayna barakacayaan shacabka Muqdisho iyo labo inay ka dhigaan xaafadahaasi goobo dagaal oo ka caagan nabadda. xalay galinkii hore waxaa shir uu ku dhex maray xerada xalan ee mucaaradka dalka Soomaaliya iyo kooxda C6+ kaas oo ujeedkiisu ahaa cabasho ay mucaaradku ka cabanayeen ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM iyagoo doonaya inaysan sugin ammaanka fila Soomaaliya ka madaxweyne Farmaajo iyagoo ku dooday inuu madaxweyne Farmaajo la mid yahay madaxweynaha hore ee dalka soo maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dalabkaasi mucaaradka ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay tahay banaysi ay banaysanayaan sidii ay u weerari lahaayeen fila Soomaaliya isla markaasina ay isaga hor wareejin lahaayeen dababaadka ciidamada nabad ilaalinta AMISOM si ay ugu fududaato ka dhabaynta hadalkoodii ahaa inay gudaha u geli doonaan madaxtooyada dalka Soomaaliya. waxaa Muqdisho ka soconaya waa saantaan colaadeed oo sarka ku haysa qabiil taas oo ay bilaabeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye oo shir ku yeeshay hotelka Jazeera iyagoo ku dhaliilay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweyne qabiil. waa mareexaan deegaankan u dhashay waa inay maanta soo baxaan. Farmaajo madaxweyne ma ahan. durbadiiba waxaa bilaabatay jawaabo ay bixinayaan qaar ka mid ah bulshada ku haybta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kuwaasoo ka falceliyay hadalkaasi oo ay u arkeen inuu ahaa mid xanaf leh. Soomaaliya gaar ahaan beesha Hawiye waxaan la hadlayaa culimaadudiinka Hawiye waxaan la hadlayaa odayaal dhaqameedka Hawiye waxaan la hadlayaa reer Muqdisho waxa igu kalifay noloshayda inaan fiideo iska soo duubin inaan soo duubo dhibta ka jirta Muqdisho ee ka taagan ee hanjabaad dhacaysay maalinkii Farmaajo xilka uu ku darsaday ilaa hadda hanjabaad baa socota ilma adeerayaal oo beesha Hawiye wixiinu Farmaajo nacayb mahane waa daarood nacayb haddaad cadaysataan toos waxa u tirahdaan ninka waa daarood waad sarbeebtaan waxa tirahdaan ninka waa mareexaan beesha daarood way idin la fahmi waayeen ninka waa daarood oo cadaysta waxa tirahdaan daarood baa la dagaalamayna oo daarood wuu israacayaa mucaaradka daaroodnimana wuu harayaa soo waxa garateen mahan ilma adeerayaal oo ana kala xishoono waxa la dagaalamaysaan Farmaajo maahan waxa la dagaalamaysaan waa idinka waxa duminaysaan waa dalkii waxa duminaysaan waa muraayadii Soomaaliyeed 4 sano Farmaajo waad aragteen Muqdisho sidoo uu qurux badiyay sidoo ka dhigay ilma adeerayaal oo aan kala xishoono cadaysta waxa la yiri laacibihiisu waa cadaystay taas waxa u tiraadaan waxa la dagaalamayna beesha daaroodaha iska keen celinayna aysan hayn maalin kasta xilli rabadaana la sooman yahay inaad masaakiinta gumaadaan inaad reeraha gumaadaan inaad dhibaato horseedaan dhibaato maalin kasta aad ku anjabaadaan waxa loo noqonayaa 91 isku soo wada duubo waxa isa soo taraya dadaalada iyo baaqyada nabadeed oo ay dirayaan bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah saaxiibada siyaasadda dalka Soomaaliya kuwa oo ku aadan sidii loogu soo dabaali lahaa nabad ayna uga baaqsan lahayd magaalada Muqdisho colaado sokeeye oo la mid ah kuwii dhacay 1991 haddii aan nahay bahda Daljir Media waxaanu ku baaqaynaa nabad iyo xasilooni in lagu soo dabaalo isla markaasna lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed wada hadal iyo sidoo kale gogol nabadeed.